kaleeto sidoo kale shir weyn baan yeelanay shirkaasoo looga shaqayn doono arrimaha abaaraha keliya dadka walaalahay ah oo dibadaha degan oo isugu imaan doona shirarka kala duwan maalmaha soo socda adduunka meel walba ay ka joogaan waxaan u sheegayaa in dalka lagu dhibaataysan yahay wax walba ood awoodaan fadlan soo gaarsiiya guddiga abaaraha waxaa kaloo muhiima inaad ogaataan dadka si wax loo gaarsiiyo waxa aad soo dirtaan waxaa muhiima inay ku dhacdo gacan ammaano ah shiikhan hortiina fadhiya ayaa nooga mas-uula cid soomaaliya oo ka wanaagsan ood aamini lahaydeen sheekh nuur baariid anugu iyo culummada kale ma garanayo fadlan walaalaha sida ugu dhaqsaha badan usoo gaar annagana waxaan idin ballan qaadaynaa wixii aad soo gaarsiisaan sheekh nuur baariid iyo guddiga la shaqeeya in sida ugu mudan loo gaarsiiyo dadkoodii waxaan rabaa sheekh nuur inaan kuu sheego dhowr arrimood tan koowaad waxaa ila soo hadlay madaxweynaha qof ganacsadaha ayaa wuxuu u keenay qoyskiisa $30,000 iyagay u keeneen madaxweynuhu anuu ii soo dhiiba lacagtii wuxuu yidhi 30,000 oo aniga la ii keenay waxaan rabaa inaad adigu maadaama aad guddiga abaaraha la shaqaysid aad igu guddoontid waan soo qaaday 30,000 madaxweynehina waan ka soo qaaday xafiiskeyga waan ka soo qaaday adigaan kuu keenay waxaan rabaa inaan kuu wareejiyo ood adigu gaarsiiso dadka dhibaataysan aad baad u mahadsan tahay adigii madaxweynuhu waad mahadsantihiin anna waxaan iga ballana inaan berrito ku wareejiyo guddiga abaaraha oon akoonka ku shubno dadkana sida ugu dhaqsaha badan aan ku gaarsiino waa mahadsan tahay waxaa kaloo rabaa inaan kuu sheego shirkeenii aan shirnay shalay oon ka codsanay ganacsatada inay taakuleeyaan dadka walaalahooda waxaa ila soo xiriiray madaxa shirkadda dahabshiil ee halkan fadhigiisu yahay magaalada muqdisho waxayna ku yabooheen lacag gaaraysa $300,000 ay ugu yabooheen dadka ay abaaruhu saameeyaan lacagtaasna waa la idin keeni doonaa sida ugu dhaqsaha badan haddii ilaah waxaa kaloo ila soo xiriiray safiirka turkiga oo yidhi dowladda turkiya waxay ka qayb qaadan doontaa arrimahan sida ugu dhaqsaha badan waxay yidhaahdeen waxaan ku bilaabaynaa 2 tan iyo bar oo ah daawada shubanka joojisa oo ay iga codsadeen in xafiiskayga uu ka soo qaado waana laga soo qaadi doonaa sheekh nuur haddii ilaa yidhaahdo berito waana lagu soo wareejin doonaa adigaana noo sheegi doona meesha la geyn doona ganacsatadii kale oo aan la shirnay aniga madaxweynuhu maanta waxay noo sheegeen inay si degdega wax u soo aruurin doonaan iyagoo ka kala yimid soomaaliya oo dhan magaalooyinka dalka soomaaliyeed oo dhan sidaas daraaddeed waxaan rabaa inaan mar labaad ugu celiyo dadka soomaaliyeed oo na dhegeysanaya ama na daawanaya iyo cid walba oo soomaaliyeed oo fariintaydu gaarto haddii ay nagu jirto wax dadnimo ah iyo damiir ah haddii aan u damqayno walaalaheena soomaaliyeed maantay qof walba waxaan ka codsanaya inuu dadkiisa garab istaago